hore ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed soo noqday taliyaha hay'adda NISA haddana ah ninka uu Rooble u magacaabay hay'adda nabad sugidda Bashiir Maxamed Jaamac Goobe ayaa Rooble u diray warqad nuqul kamid ah aan helnay oo siday iscasilaad talo bixin iyo damqasho isagoo ra'iisul wasaaraha ugu sheegay warqadda in loo baahan yahay in hay'adda burbur laga ilaaliyo soona bandhigay xogo muujinaya in hay'addu cagta saartay wadada burburka taasna uu Rooble mas'uuliyadeeda qaadi doono Bashiir Goobe ayaa ku yiri warqadiisa mudane ra'iisul wasaare markaan arkay sida uu yahay xaalka hay'addu wada shaqayn la'aanta ka jirta saraakiisheeda iyo shakiga soo kala dhaxgalay waxaan jeclaystay inaan kula wadaago inaad tallaabooyinkan labada ah mid qaado inaad madaxweynaha la fadhiisato adiga oo siinaya tixgelin iyo qadarin kalena tashato dhismaha maamul ee hay'adda NISA isla markaana aad ku soo heshiidaan qof hay'adda u qalma oo ka bixin kara xaaladan ay ku jirto ama midkiin loo daayo soo magacaabista taliyaha inaad iga aqbasho istiqaaladayda oo aad booskayga qof kale u raasato sababtoo ah hay'addiina uma shaqaynayo waana ku shaabadaysanahay sumcadeyduna way ku dhimane haddii anigoo taliyaha NISA ku magacaaban ay burburto ayuu ku yiri warqadiisa Bashiir Maxamed Jaamac Goobe taliya Bashiir Goobe oo sii hadlayay ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha lana wadaagay xog ku saabsan arrinta ka dhex jirta hay'adda nabad sugidda qaranka waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha in hay'addu ay hadda ku dhowdahay inay burburto waxa uu sheegay saraakiisheedii inaysan wada shaqayn ka dhaxayn qaarkood kala shaki ayaa soo kala dhaxgalay waxa ayna wajahayaan khalkhal amni iyo sidoo kale inay is-aamini waayaan cutubyana ay isu dagaalaan ciidamada hay'addu sidoo kale Bashiir Maxamed Jaamac Goobe ayaa ra'iisul wasaaraha u sheegay in hay'addu hadda ay leedahay laba taliye isaguna uu ka yahay sidoo kalena uu Yaasiin Farri yahay taliyaha hay'adda ee laga aqoonsan yahay madaxtooyada Soomaaliya kaasi oo soo magacaabay madaxweynaha qaranka waxa uu sheegay taliya Bashiir Goobe in madaxweynuhu uu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo taliyaha balse xilliga lagu jiro darteed loo baahan yahay in wada hadal lagu soo dhameeyo qofka hay'addan hogaamin doona taliya Bashiir Goobe ayaa ka deeriyay xaaladda hay'adda waxa uu sheegay inay ubuuc tahay hay'addani amniga qaranka isla markaana haddii uu soo gaaro wax yar oo burbura uusan amniga qaranku caga badan ku taagnaan doonin uuna halis u geli karo in dalku uu burbur wajaho taliya Bashiir Goobe ayaa tusaale u soo qaatay dhaqdhaqaaqa ay ka wado Kenya xuduudda gobolka Gedo waxa uu sheegay in hay'addu aysan ilaa hadda wax tallaabo ka qaadin arrinta gobolka Gedo dhaqdhaqaaqa Kenya ay kaga hortagayso arrinta badda iyo falalka ay ka maleegayso gudaha dalka oo uu sheegay haddii hay'addu ay shaqayn lahayd in ay arrimahaasi xogo badan ka heli lahayd taliya Bashiir Maxamed Jaamac Goobe oo u muuqda in uu ra'iisul wasaaraha dareemay inuu dalkan burbur ku wado ayaa la wadaagay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu wax badan ka bedelo systemka uu hadda ku shaqaynayo oo uu sheegay inuu yahay mid aan ku imaanin maskaxdiisa balse uu yahay mid loo soo weydaariyay ra'iisul wasaaraha wadamo shisheeye iyo danaystayaal siyaasadeedna ay ku orkacsanayaan Bashiir Maxamed Jaamac Goobe ayaa gabagabadii tala siiyay ra'iisul wasaaraha wuxuuna ku booriyay inuu ka feejignaado khataraha wadanka u maleegan mudane ra'iisul wasaare wadanku wuxuu wajahayaa xaalad adag hay'adda nabad sugidda sidan ay u taalaa oo ay burbursan tahay uma malaynayo in doorashooyinku ay si nabad ku dhici karaan uma malaynayo in Kenya ay joojin doonto degdegan ay ku sameynayso wadanka uma malaynayo in xaaladda hadda jirta laga gudbi doono inta hay'adda nabad sugidda wax bedel lagu sameynayo hay'adaha amniga qarankana ay gacanta kala baxayaan danaystayaasha siyaasadeed mudane ra'iisul wasaare madaxweynaha ula laabo talooyinka aad u baahan tahay iyo horumarada aad sameynayso ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Bashiir Maxamed Jaamac Goobe hadaba daawade sidaad u aragtaa go'aanka uu qaatay Bashiir Maxamed Jaamac Goobe